بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله عوادي إن شاء الله وحن كافي دونا سيد أدوات استعمال أي أصمين كرتا دروب داون منو سيدا كان أو خلاص هذا أن استعمال أي تصالحان قف كان ماشي وكل شو خلاص دارتين شيكتي أنا أدي ودور في المجالو يكون دارن لا سيدا خلاص دي أمارة الاستاتوس كأثيرنيس مالية أدي قاعد دور لهيد قف كان صار أمارة الاستاتوس كوحن كده ياس ونو sidee waadka markaan joogno kaleeta aan u samayn karnaa. Okay, firstly waxaan qoranayaa oo kaleeto kaba soo qaad saalan genderka oo kaleeta sideen lagu samayn karaa arrintan oo kaleeto waxaan tagayaa option kadibna waxaan tagayaa halkan ay ku qoran tahay use command waxaan ka dooranayaa main tabs ayaan dooranayaa kadib waxaan kasii dooranayaa developer halkan ay ku qoran tahay kadib waxaan leeyahay add kadib waxaan leeyahay okay already meeshaan ayuu kusoo darsamayaa marka developerka markuu halkan kusoo darsamo meeshaan control ay ku qoran tahay ayaan dooranayaa kadib waxaan soo qaadanayaa midkan control ama combo box content control ay ku qoran tahay hal mar ayaan click siinayaa markaan click siiyo kadib waxaan dooranayaa properties markaan doorto intaan imaanayaa oo ah display name magaca soo muuqanaya ee add soo leeyahay kadib waxaan leeyahay meeshaan ayaan dhaku siinayaa male and female wax ka badan ma jiraan labadaas ayaan soo qorayaa male waan qoray oo lab ah sidoo kaleeto gender ayadna female ayaan leeyahay insha Allah qorayaa waan qoray kadibna waa kaa leeyahay okay already maxaa aragtaa adoo wordkaaga jooga ayaa waxaa samayn kartaa drop down menu si fudud ayaan u isticmaali kartaa waxaa leedahay male or female wuxuu aad u anfacaa dadka sameeya warqadaha foomka oo la buuxiyay dad badanna inaa u daabacda aragtid si manual ah adigoo si fudud u samayn kara magaalooyin kala duwan ama meelo kala duwan ama waxyaabo kala duwan oo adeegsan kara saadaan aan u adeegsanaa status ka xaaladda gurkiga place of birth oo boosaaso genderka waa female ama male niraahdo mid kaartay adiga aad dooran karto markaas okay taas waay ashakeen dilaan insha Allah inaan wax badan ka faa'iido doontaan. Assalaamu calaykum raxmatullaahi